baahanahay in la ii keeno large biiso iyo hal shawarma. dhowr sano ka hor magaalada Muqdisho ma lahayn adeeg delivery kaas oo adiga oo jooga goobtaaga kugu keenaya adeegyada aad u baahato. waxaase hadda magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ku soo badanaya adeegyada delivery kuwaas oo isticmaalaya mootooyin iyo gawaari kale iyaga oo kugu adeegaya si hufan oo dhaqsi badan. dhalinyarada Soomaaliyeed waxay wajahayaan shaqo la'aan baahsan, qaar badan waa ay tahriibeen oo waxay ka tallaabeen badda iyagoo maciinsaday qaaradda Yurub una bareeray khataraha iyo halista badda. kuwa kale waxay iska joogaan guryaha iyagoo waayay waxay qabtaan, halka kuwa badan oo ku jira waxbarashada heerkooda gabagabadana ay ka walaacayaan waxa ay qaban doonaan waxbarashadooda kadib. Cabdicasiis Dhaqane iyo saaxiibadii waxa ay ku dhiiradeen inay ka quusanin dhulkooda hooyo iyagoo sameeyay hal-abuur ganacsi oo la magac baxay degdeg delivery kaas oo kugu adeegaya sida ugu dhaqsiyaha badan adigoo ku sugan goobtaada ganacsi, gurigaaga ama shaqadaada. waa arrin aad u fiican oo mudan dhiirigelin iyo bogaadin. magacaygu waa Cabdicasiis Dhaqane Cab TV oo ay ka hadlayaan soo booqataan hadaan nahay shirkadda degdeg delivery. shirkaddan waxaa la aasaasay dabayaaqadii 2023. ujeedka ugu weyn loo aasaasay waxay ahayd inay ka jawaabto baahida suuqa bulshada Soomaaliyeed taasoo boqolkiiba 60 aan helin macaamiisha ama dadka delivery u baahan in laga jawaabo, halkaasna ay ku lumeen fursado badan oo dhanka macaamiisha. sidaas darteed ayay degdeg delivery suuqa ugu soo biirtay. muddadaas ay aasnayn waxay ka shaqeynaysay inay haqabtirto macaamiisheeda iyo bulshada Soomaaliyeed oo u baahan adeega delivery. waxaan ka shaqeynaa saddex qayb aad u waaweyn oo delivery ka kooban yahay. maqaayadaha oo kale ayaan kala shaqeynaa delivery-ga, supermarket-ka oo grocery-ga iyo adeega cuntada laga adeegto kale, badeecada caadiga ah, iyo sidoo kale shopping-kii iyo pharmacy-gii ayaa oo soo socda baanu delivery-ga ku geynaa. waxaan u baaqayaa inay soo biiraan oo ay nolol noqdaan shaqo wadaag si loogu wada adeego macaamiisha u baahan adeega delivery-ga. dadka sidee idinka soo dalbadaan qaab nooc idinka soo dalbadaan? waa maasan tahay walaashay. waxaan leenahay app la yiraahdo degdeg app kaasoo oo qofka uu markasta kala socon karo halka uu dalabkiisa maraayo iyo sida ugu macquulsan oo ma garanaysaayay uu haddii tusaale wax soo dalbado in dalabkiisa la aqbalay wuu ogaanayaa, haddii la soo dhiibay wuu ogaanayaa. markii uu loo geeyana anagoo xarunta joogna ayaan ogaanaynaa in qofka u geeyay uu u dhiibay oo qofkii wuxuu soo dooran doonaa qayb ka qorantay dalabkii waan helay si oo aan u qiimayno markasta qanacsanaanta macaamilka delivery-ga loo geynayo ama adeega loo geynayo. wallahi marka ganacsi la bilaabayo runtii waa iska challenge badan yahay. caadiyan aasaaskii isku keenidii iyo shaqada dejinteedii ay waqti qaadatay. marka qaar maadaama aan ka shaqeyno delivery dhanka waxa loo yaqaan magaalka kale marka qaar jam noqonaya, marka qaar wadooyinka xiran, waxyaabahaas oo kale way dhici karaan marka macaamiil adeeg loo dhiibo mashidkii oo xiran oo ku aado ama magaalada jama waa dhici kartaa. laakiin waxaan ku dadaalay boqolkiiba boqol karaamkeena inay noqdaan adeegyadeena kuwa hufan, isku halayn karo, waqti loogu talagalana ku gaara bulshada loo adeegayo. dadka sidee idinkaga soo dalbadaan macnaha maalintii celcelis ahaan meeqa sameysaan ugu badan? wallahi maalintii anaga waxaan lahayn target ah in appkeena uu dad badan kasoo dalbadaan. targetkeenii hadda 100% ayaan gaarnay. waxaan rajaynaa 70 xiga inaan dhamaystiri doono oo ay bulshada ku qanci doonaan adeegeena. appkuna wuxuu ku jiraa Play Store-ka iyo App Store-ka labadaba waa ku jira. degdeg app ayaa la yiraahdaa, baan lagala soo degi karaa insha Allah taala. maxaa delivery-ga idinka horeeyay ama magaalada Muqdisho ka asaasnaa maxaa isleeyihiin way ugu duwantiin idinka? waxaan ugu duwannahay horta time-ka waxa ugu muhiimsan waqtiga qofka wax loo geynayo. waqtiga aad ayaan u soo koobnay anoo ka dadaalayna qof xafiiska jooga ama qof gurigiisa jooga oo rabo inuu qadeeyo ama hawl ama qof wax gatay wixii uu isticmaalo u baahan. waxaan fahansanahay mudnaanta ay leedahay qofkaasi in waqtigii ugu habboonay loogu jawaabo. waana ku dadaalay waana ta aanu xoog saarnay.
waxaan kaloo xoog saarnay in adeegga delivery-geenu uu ahaado mid aad iskula socda aan ula jeedo qofka wax dalbaday meesha laga dalbaday xarunta dalabkan hagayso degdeg delivery ah iyo mootolihii ama darawalka dalabkaas qaadayay afartaas qaybood inay sidoo iskula socdaan oo ay laga maarmo in waqti badan dhexdooda uu afarta qof ku lumo haddana aan dareemi karno afar qof in la iswacaan waqti qaadanayso laakiin waxaan sameynay nidaam fududeynaya oo abkeenu ku jira oo markiiba la isku shaqeyn karo gaadiidyaha aad isticmaashaan oo ugu badan maxaa ugu geysan dadka inta badan waxaan isticmaalnaa mootooyinka oo motofeekoonka oo sida caadiga ah delivery-ga qaada waan rajeynaa mustaqbalka inaan gaarno gaadiid kale kasii duwan ugu dambeyn maxaa rajeynaysaa ganacsigan inaad abuurteen inaad heer noocaad inaad gaartaan ومعصنتها ولا شيء وجدت قوي قاعد الله أوري مش كده وحيد إني ضبطوا بهذا كتير السوق جد أوله وين أكلنا وحاول إن بهذا السوق كتير أي أن تقول كي تضبطها يراينه أنت كلنا نقول قالوا حلو قانو ماركت ك يفرشها السوق دنبه عن لو داقنو شركة كده أنا واحد سميها شقابور ولا رأس الصومالية ده وموتوينكii magaalkan laga yaabo maalintii inaysan dalab badan sameeynin in dalab fiican helaan ayna ka shaqeystaan